dowladda Mareykanka ayaa si rasmi u dhaqan gelinaysa qodobo ku wajahan xayiraad la saaray mas'uuliyiin dhashay dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo ay ku jiraan madaxda sare sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo soo saaray war-saxaafadeed ku wajahan xaaladda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. xayiraadda oo isugu jirta dhowr nooc waxa ugu horreysay in Mareykanka loo diiday xubnahan inay yimaadaan. waxa tallaabada dhaawac weyn oo siyaasadeed ay ku noqonaysaa xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo dalalkaasi. tallaabada waxaa la socda in si gaar ah loo joojiyay tallaabo kasta oo xiriir uga dhaxeeya Mareykanka iyo Itoobiya. si gaar ah waxa ay Washington u joojisay kaalmadii dhaqaale, military iyo iskaashiga amni ee kala dhaxeeya Itoobiya. waxaana lagu sheegay in la qaadi doono tallaabo kale oo dheeraad ah oo la xiriirta arrimaha labada dal ka dhaxeeya gaar ahaan marka ay joogto xiisadda la xiriirta gudaha dalka Itoobiya. Addis Ababa waxay waayi doontaa malaayiin dollar inkastoo aysan soo gaarin 8 bilood ee la soo dhaafay dhaqaalahaasi. haddana Washington waxay sii qaadaysaa tallaabo kale oo ah in Addis Ababa aysan hub ka soo iibsan karin shirkadaha laga leeyahay dalka Mareykanka, sidaas oo kalena aysan la macaamili karin gabi ahaanba ilaha dhaqaale ee Mareykanka. xubnaha xayiraadda lagu soo rogay oo aan magacyadooda la xusin waxa ku jira xubno ka tirsan TPLF laga saaray gobolka Tigray, madax ka tirsan dalalka Itoobiya iyo Eritrea. dhammaan kiiskan oo dhan waxaa loo cuskaday xaaladda ka taagan gobolka waqooyiga ee dalka Itoobiya. beegsiga cusub ay qaaday Mareykanka waxa la rumaysan yahay inuu sidaasi ama uu asaas u noqon doono tallaabooyin kale oo lagu shaacin doono magacyada dadka la xanibay, kuwaas oo haddaba la aaminsan yahay in la geeyo magacyadooda dhammaan xarumaha ay qusaysay gaar ahaanna waaxda socdaalka ee dalka Mareykanka. dadka darsa ama la socda arrimaha geeska Afrika ayaa ku sifaynaya tallaabada Washington mid ay ku doonayso inay ku soo celiso saameynteedii gobolka geeska oo gacanteeda kala bar u muuqda inuu ka hoos baxay ilaa waqtiga xukunka uu joogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Ra'iisul Itoobiya Abiy Ahmed ee haysta biladda nabadda adduunku waxa uu dhawaan sheegay in arrimaha ka jira gudaha dalkiisu ay yihiin kuwa aan qusaynin dalalka shisheeye. wuxuu sheegay in ka shaqeynayaan sidii wadajir wax looga qaban lahaa arrimaha waaweyn ee dalkiisa. Abiy wuu diiday in jilbaha ay u dhigtaan reer galbeedka, mana dafirin inay doonayaan inay burburiyaan dalkiisa Itoobiya si gaar ahna dowladda Mareykanka ayuu ugu eedeeyay inay ka soo horjeedaan deganaanshaha Itoobiya midaysan ayna taasi beddelkeeda doonayaan Itoobiya kala sarreysa oo kala qoomiyada ah. dhammaadkii sanadka hore TPLF ayaa xoogga saaraysa inay qabsato talada Itoobiya. waxay ku eedeysay Addis Ababa inay doonayaan inay kala jaraan Itoobiya iyagoo adeegsanaya awood ciidan iyo kuwa shisheeye, laakiin ay ka hortageen tallaabadaas ayna ahayd mid muhiimad weyn ugu fadhiday gobolka geeska oo dhan. kumanaan askari oo ka socda Eritrea ayaa qayb ka noqday dagaal adag oo ka dhacay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala. dagaalkaasi oo loogu awood sheegtay TPLF 29 sano xoog ku maamuleysay geeska Afrika. waxaana muuqatay in xisbiga talada haya ee Mareykanku aysan jeclaysan in si degdeg ah looga guuleysto kooxdaasi. carada kale ee maamulka Biden qaba waa in ergeyga gaarka ahaa ee ay u xirsaareen arrimaha geeska Afrika Feltman uusan arkin wali Abiy Ahmed uuna diiday Abiy inuu la kulmo ama qaabilo muddo dheer, taasoo ku kaliftay in Mareykanku ay caroodaan una arkaan tallaabadaasi mid lagu yasayay ergeygooda. Mareykanku waxa uu TPLF ka caawiyay inay noqoto albaabka ay ka galaan geeska Afrika sanado badan, waxayna balaayiin dollar ku qaateen mashruuca la dagaalanka argagixisada. sidaas oo kale kumanaan ka mid ah askarta Itoobiya ayay Washington u tallaabisay Soomaaliya sanadkii 2016 ay halkaas uga fuliyeen qorshaha Mareykanka. dagaalkaas oo laga diiwaan galiyay dhacdooyin ka dhana xuquuqda aadanaha, haddana ma jirin tallaabo cunaqabateyn iyo cambaareyna oo ka timid Mareykanka. dhinacyada kale ee saameynta kale ay ku yeelan doonto gobolka ayay u soo waaridi doontaa dagaalka bariga iyo galbeedka oo uusan nasiino badan awalba gobolku ka qabin. Itoobiya si gaar ah ayay u muuqataa in lagu loolami doono. Mareykanku waxa ay doonayaan inay lahaadaan ceelaha shidaal ee gobolka Soomaali galbeed. dhinaca kalena saameynta Shiinaha oo dib u dhisay kaabayaasha dhaqaalaha Itoobiya ayaa joogta oo si fudud aan ku bixi doonin. Abiy Ahmed uma muuqda siyaasi ka tagaya Shiinaha ama Ruushka muddo dheer ayayna uga baahan doontaa maareynta dhacdooyinkan cusub ee siyaasadeed, laakiin dadka saadaaliya siyaasadiisu waxay ku sifeeyeen in aad uga muuqurta arrimahan oo kale marka ay yimaadaan goob kalena ka baskiciya. dhacdo kale oo weyn waa arrinta ku saabsan sida uu maareyn doono kacdoonnada gudaha iyo doorashooyinka oo dhammaantood saameyn culus reebi doona. sida Mareykanku arrintan ay uga falgalayaanna waxaa loo arkaa inay tahay tallaabo Mareykanku uu ku doonayo inuu cadaadiska ku sii ballaariyo kuna sii hayo Itoobiya. laakiin waxa kale dhinaca kala muuqata inay fursad arrintan u noqon karto wadamada kale ee Shiinaha iyo Ruushka oo Mareykanka ay hayaan, sida ay ugu dhiiran karaan laftirkoodu. waa arrin kale oo iyana aan sahlanayn in gobolka si fudud ay waqtigan uga hirgasho. arrinta ku saabsan cunaqabateynta lagu soo rogay madaxda ka tirsan Eritrea iyo Itoobiya ee Mareykanku waa mid sii wiiqi doonta 10 sano oo soo socota xiriirka labada dhinac, gaar ahaan Eritrea, Mareykanka iyo Itoobiya. Mareykanku waxa uu isku arkaa laacib weyn oo siyaasadeed
iyo cadaadis saare xoog badan marka ay joogto arrimaha gobolka Geeska Afrika. Ethiopia waxa uu hoggaankeedu hadda isku arkayaa inay yihiin halyeeye ay tahay inay gudaha Ethiopia dhexdooda oo kaliya ay ka xaliyaan laakiin dibadda aan looga imaanin. kala aragti duwanaanshaha iyo qolo kasta madaxweynaanteedu waxa muujin doona cidda guuleysata maalmaha soo socda iyo loolanka Geeska Afrika oo xasaasiyadiisa sii wadan doona. shirkadda Xaaji Alison Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa sonkorta, bariiska iyo galleyda, dharka, isbarbaarka bajaajyada, dawooyinka. Wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada? Ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.